السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر waxaan halka kan maanta idinku soo gudbin doonaa sheeko la magac baxday saddexdii maanlaawe ama saddex maanlaawe sheekadii la magac baxday saddex maanlaawe ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa inta aanan sheekada idin soo gudbinin ama aanan idin soo tabin waxaan marka hore si xishmad iyo qadarin la idinka codsanayaa inaad inoo saartaan barnaamijka si uu u gaaro dhammaan dadka kale ee Soomaaliyeed subscribe like and share wixii fariin ah waxaad iigu reebi doontaan qaybta commentiga ama faallooyinka waxaan bilaabi doonaa sheekada saddexda maanlaawe nin waxa la yiri reer miyi ahaa ayaa nin dooba ayaa aabihii waxa uu uga dhintay baa la yiri geel fara badan oo ilaa 100 halaad iyo baarqabkoodii ahaa ninkaasi wuxuu ahaa nin madi ah aabihii geela 100 iyo baarqabkoodu uga dhintay wuxuu ahaa nin aan cid kale la dhalanin sidoo ninkii sidii uu ahaa ayaa waxa ku dhacay ninkii caashaq baa ku dhacay jacayl baa ku dhacay gabadh buu jeclaaday kamida deegaankii ay meesha wada deganaayeen ama dadkii ay isku deegaanka ahaayeen gabadhaas oo aad u dhagiya dhaban badnayd dabeeta ninkii waxa uu sameeyay gabadhii haasaawo guur bay ku kulmeen kolkii ay gabadhii haasaawo ku kulmeen haasaawahaasina haasaawo guur uu daaranaa ninkii iyo gabadhii waxay go'aankoodii iyo guntii iyo gabagabadii sheekadooda ku soo gabagabeeyeen in ay guri wada yagleelaan isna guursadaan rug iyo reerna wada dhistaan oo ay noqdaan lamaane nolosha ku bahooba oo wadaaga nolosha inta u hadhay sheekadu markay halkaasi marayso ayaa gabadhii iyo wiilkii heshiiskooda waxa kamid ahaa oo ay gabadhii soo jeedisay in ay u weydiisto aabaheed wiilkii hadalkama uu keenina codsigii gabadha si fiican buu u aqbalay waxaan uu tagay odaygii dhalay gabadhii buu weydiistay aabaheed wuxuu yiri adeerow waan ku siiyay gabadha waanan ku siinayaa gabdhana waa la isweydiisan jiray weligeedii allaheedba Soomaaliduna gabdhaha isuma diido waa waxaynu dhaqan u lahayn gabadhina waxa la yiri ama godka kaaga jirta ama guriga kaaga jirto marka waxaan ku sheegayaa buu yiri adeer horta de maadaama aad tiri gabadhaasaan ka doonayaa marka hore waxaan ka doonayaa inaad soo kaxaysato inaad tolka soo kaxaysato oo de ragii odayaasha ahaa ee reerkii aan isku gadaha ahayn inaad soo kaxaysataan ka doonayaa waa qodobka koobaad waa qodobka labaad ee waxaan ku sheegayaa oo kugu wargelinayaa buu yiri inantaasi yaradkeedu waa intii aan hooyadeed ka bixiyay buu yiri waa 100 halaad iyo baarqabkoodii waa intii aan hooyadeed ka bixiyo waa 100 halaad iyo baarqabkoodii iyo taana ku biyo cab buu yiri inankii hadalkii odayga kamuu keenin hadal sidii buu isagana ku qaatay waa sax buu yiri waan ku imanayaa buu yiri sidii baa lagu kala tagay ballantii baa la qaatay inankii dabeetana isagoo raggii wata reerka odayaashii nin qarta ahaa iyo guurtidii iyo raggii duubka lahaa ee reerka isagoo wata ee u waaweynaa ayuu yimid dabeetana waxa kale oo ay wadeen oo maxaan ku dhahdaaye kamid ahaa la socday ragga heshiiskii wiilka iyo odaygu ay soo galeen ahaa 100kii halaad iyo baarqabkii xaradiisa ku jiray intii oo yarad ana wuu waday dabeetana inantii baa la siiyay markii la isu geed fadhiistay waa la siiyay inantii waa la isu duceeyay yaradkii iyo gabaatigii halkii baa lagu kala qaatay ninkii wuxuu halkaa ka kaxaystay gabadhii oo suka ah oo aan wax aliyaala iyo waxay haystaan haba yaraatee aanay jirin 100kii halaad iyo baarqabkii uu haystayna ka yaradka uga bixiyay sidaasay ku anba baxeen oo dabeeta wuxuu u anba baxay xagga geliga cidlada ah iyo dhulka cidlada ah ama xagga ooda ee duurka ayay galeen halkaasay ku noolaayeen ninkii iyo gabadhii waxay noqdeen baydari ama nooca loo yaqaan ugaadhsadaha dabatay noqdeen halkaasay dabatay iska ahaayeen muddo siday dabatay isaga ahaayeen oo dhowr caruurana ay leeyihiin ayaa waxa ka daba yimid odaygii inanta dhalay oo xoolo kala doonaya maadaama ay inantiisii ubad yeelatay dhaqanka miyigu sidoo ahaa barigii hore inantu kolkay curatay wiil dhasho waxa la oran jiray de wixii keen baa la oran jiray xoolo ilaa waa tan gabadhii ku curatay wiilka ku dhashay dabeeto odaygii inanta dhalay oo socota abaa reerkii yimid reerku waxba ma haystaan habeenka uu yimid sidoo u soo haybinayay buu reerkii soo galay halka ardaagu fadhiistay waxa weeye dabeetana inantii oo yaxyaxsan oo yaaban inantu odaygu dhalay weeyaane ayaa oo aanay reerkana wax aliyaala iyo wax marti loo kariyaa aanay ool ayaa waxa ay samaysay waxay u tagtay nin ay jaar ahaayeen ama daris ahaayeen oo isaguna sidoo kale dabata ahaa sidooda oo baydariya dabeetana waxay ku tiri waarniyo war nabada lagu sii
aabbahay baa caawa reerka yimid oo martiya waxa la yaalo waxaanu kariyana ma haysto waxaan kaa doonayaa inaad isiiso waxaanu caawa karsanno oo aanu aabbahay u karinno waanu ku siin doonaaye dabeetana wuxuu ku yidhi lugtaa sagaaradan hayaa waan ku siinayaaye dee u kariyo laakiin shardi baa ku xidhan maxaa ku xidhan bay tidhi wuxuu yidhi waa inaad ninkaaga ka soo baxdaayo aniga iiga soo baxdaa kolkaan lugtaa ku siiyo dabeetana gabadhii waxay tidhi waayahe waa hawraarsana waan aqbalay codsigaagee cashadan caawa samayn doonee lugtaa sagaarada aan ka samayn doono ka soo qayb gal sidiiba gabadhii lugtii ku soo qaadatay way soo qaadatay reerkiibay timid way karisay cadkii uu soo dhiibay ninkii dabeetana markay cadkii soo dhigtay ee saddexdoodiiba ay toosisay ee intay bislaysay ay u soo dhigtay ayay tidhi 3 maanlaawe ayaa tihiin saddexdiinuba dabeetana aabaheed baa yidhi aabba maxaa dhacay waa maxay 3 maanlaaweed sheegaysaa sidee kaa noqotay miyaanan aabbaha ahayn oo waalidka ahayn waa sidee waa maxay waxaad akhriyaysaa dabeetana inantii waxay tidhi mayane aabba sidaad mooday maaha sheekadiyo laakiin waxaad ogaataa inaad 3 maanlaawe tihiin cabaar baa kaftan yaroo bilaa turxaano oo dee aabbanimo iyo waalidnimo la isku tuurtuuray dabeeto inantii wuxuu yidhi aabbaheeduu ka hadhi waaya aabba maxaad uga jeedaa 3 maanlaawaad tihiin dabeetana inantii waxay tidhi 3 maanlaawaad tihiin aabba oo waxaan uga jeedaa adigu aabba maanlaawaa tahayoo waxa weeye 100 halaad iyo baarqabkoodii ninka adduunyo lahaa ee 100kii halaad iyo baarqabkiiba adiga ku siiyey baad maantana adduun kale u soo doonatay oo maanlaawaa tahay bay tidhi horta adigu ee taa ku biyacad waxa kaloo ay ku dartay ninkan iqabaano waa maanlaawo oo waa ninka adduunyo 100 halaad iyo baarqabkoodii ka lahaa adduunyaba 100kaa halaad iyo baarqabkoodii buu lahaa 100 geela iyo baarqabkoodii buu adduunyaba ka lahaayo 100kii halaad iyo baarqabkiiba yarad buu u bixiyey oo anigu dee waxa weeye iga bixiyey markaa waa kaa mucsurka caydha ah noqday ee qaawan ee dabatada noqday ninkan ugaadhsadaheennu dariska nahayna waa maanlaawa bay tidhiyo gabadha 100 halaad iyo baarqabkoodii laga bixiyey ee yarad looga bixiyey ee qiimaheedu halkaa marayo ayuu lug sakaara ku doonayaabay tidhi waxay tidhi adiguna aabba maanlaawaa tahay kani qabaano waa maanlaawe kananu dariska nahay ee sagaarada cadkeeda ay soo siiyana waa maanlaawe adigu maanlaawaa taho 100 halaad iyo baarqabkoodii baad qaadatuu ninkani lahaayo waxba aanu kaala hadhin oo haddana xoolo kalaad ka rabta kani qabaano waa maanlaawo oo waxa la yaala wuxuu adduun lahaa aduu xerada kuugu shubo wakaa caydha ah oo waxa weeye isna waa maanlaawe waxa saddexdiinaba idinka sii daran bay tidhi kan baydariga ah ee ugaadhsadaha ah ee nu dariska nahay ee cadka sakaarada ay soo siiye xalay ee muxuu ahaayey isaguna cadkaa sagaarada ku doonaya gabadhee yidhi ninkaaga iiga soo baxa markaa saddexdiinuba sidaasaad ku noqoteen bay tidhi 3 maanlaawe dabeetana sheekadaasi waxay la baxday sheekada magaceeda la yidhaahdo 3dii maanlaawe ayay la magac baxday gabadhaasi runtii waxaynu odhan karnaa waxay ahayd gabadh aad iyo aad u layaab badan waxay ahayd gabadh Soomaaliyeed oo fahmo fariidnimo iyo maskax furnaan uu ilaahay ku manaystay waxay ahayd gabdhihii farakutiriska ahaa ee waxa weeye u fiirsan jiray ama xaalad kasta oo timaada wax ka odhan jiray ee darsi jiray ee la faguri jiray ee waxa weeye wixii meesha ku jira ee ku habboonay hadalana maxaan ku raahdaa ka odhan jiray marka waxaynu odhan karnaa runtii sheekadaasi waa sheekadii 3 maanlaawe waxa laga yaabaa adigu inaad 3 maanlaawe qalbiga ku hayso qof kasta oo ay daawanaya inuu 3 maanlaawe yaqaana laga yaabaa yaad u taqaanaa 3 maanlaawe bal qof walba faallada hadda ku soo qor cidda aad u taqaana 3 maanlaawe ama ciddii adigu aad ku fasiri lahayd 3 maanlaawe kuwa ay noqonayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadnaqayaa kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh